Anaconda ayaa ka mid ah masaska ugu xajmiga weyn masaska adduunka, asagoo lagu yaqaan awoodiisa dabaasha, wuxuuna awoodaa maskan inuu hal mar liqo qof bani aadam ah. Celcelis ahaanna culeyskiisu wuxuu gaaraa 200 ilaa 250 kilogram, halka dhererkiisu uu gaaro 33 feet. Dhanka ugaarsigooda, waxa ay weeraraan ugaartooda waxayna u adeegsadaan farsamooyinkooda dilka ee u khaaska ah. Inta badan waxay ka ugaarsadaan goobaha cawska leh ee u dhow qararka webiga. Anaconda wuxuu ugaarsadaa xayawaano kala duwan sida jiirka, masaska yaryar, iyo xitaa doonfaarka markuu biyaha ka cabaya webiga. Marka ay ugaartiisa u dhimatana wuu wada liqaa. Marmarka qaar, ugaarsiyada halista badan ee uu sameeyo Anaconda waxay sababi kartaa dhaawac halis ah iyo dhimasho. Dhanka tarankoodana, xilliga gu'ga, Anaconda noociisa dhadig wuxuu hawada ku sii daayaa kiimiko caraf ah oo uu ku soo jiidanayo kuwa lab. Isla markiina raxan Anacondayaal lab ah oo gaaraya 2 ilaa 12 ayaa u tartama midda dhadig si ay waqtigooda u qaataan. Isku tegidda Anacondayaasha waxay ka dhacdaa biyaha dhexdooda ama meel u dhow webiga. Anaconda midda dhadig waxay dhashaa 29 ilaa 35 ukun. Dhanka cimrigana wuxuu gaaraa 20 ilaa 30 sannadood. Deegaan ahaan, Anaconda badankiisu wuxuu ku nool yahay keymaha Amazon ee Latin America.